السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسود وهذا FBL Somali magacaygu waa Daahir Cabdilla Cali waxaan idinku soo dhaweynayaa mar kale channelkeena FBL Somali ee YouTube-ka iyo dhinacyada kale ee social media aan ku leenahay Instagram-ka, Twitter-ka iyo Facebook-ka haddii aad dhawaan ugu soo biirtay waxaan ku leenahay soo dhawow halkan waxaan idinku soo gudbinaa Fantasy Premier League iyo wararka la xiriira anagoo si joogto ah ugu daabacnaa page-keena xogaha la xiriira FBL-ka sida ciyaaryahanada qiimahooda ay sare u kacayaan kuwa ay hoos u dhaceen iyo xogaha dheeraadka ee la xiriira qaab ciyaareedyada ciyaartoyda markaas aad qof walba maamula ah uu ku tashanayo haddii aan u gudubno toddobaadka 27 oo asna double game week ay leeyihiin laba koox oo kala ah Manchester City iyo Southampton. Manchester City waxaan ognahay in ay rekoorkeeda guulaha ay ka dhigatay 28 kulankii 28 markii ay ka badeen kooxda Wolves sidoo kale 15 dhibcood ku haysa horyaalka kulankii 21aadna si xiriir u badisay marka waa taariikh cajiib ah ay qorayaan kooxda Manchester City oo waxaad moodaa in horyaalka ay rabaan in ay si degdeg ah ku qaataan kooxda Manchester City haddii aan fiirino ciyaaryahanada laga yaabo in toddobaadkan dhibcaha double game week ka soo xaradan waxa kamid ah Gundogan waxaan ognahay in toddobaadyadii ugu dambeeyay oo dhibco ka keenay oo toddobaadkii hadda la soo dhaafay blank ayuu ahaa oo kulan kamid ah kulamadii hore waa la fariisay laakiin wali waxaad moodaa in uu kamid yahay dadka dhibcaha laga xisaabtami karo looga tashan karo waxa ku xiga Foden kulamadii hadda ugu dambeeyay ee Manchester City ay ciyaartay waa la nasiyay marka waxaad moodaa qof fresh ah oo lagu soo bilaabi karo sida ay u badan tahay maadaama Pep Guardiola uu yahay qof mar walba isbedel ku sameeya kooxda oo ciyaaryahanada isku bedela in halkaas ay uga muuqato shakhsiga haysto Foden ama maamulihii haysto Foden in lagu soo bilaabi karo waxa ku xiga De Bruyne uu soo laabtay dhaawac ayuu ka soo laabtay waana caawinta iyo markii la helo in uu mar walba fursad koowaad u leeyahay asagaas ku xigo waxa kaloo dhibco lagu xisaabtami karaa Mahrez oo toddobaadkii la soo dhaafay 17 dhibcood keenay oo qaaday afartii isbuuc ciyaareed hadda ugu dambeysay dhibco badan keenay marka Mahrez ayaa asna laga yaabaa inuu meeshaas dhibco ka keeno maadaama hadda uu form yahay Guardiola oo laga yaabo inuu ku soo bilaabo dhinaca weerarka markaan fiirino Aguero ayaa wali daqiiqada aan la siinin laakiin waxaad moodaa in wali Aguero oo kale uu noqon karo haddii kulamada labadan kulan lagu soo la siiyo fursad in uu wax ka keeni karo sidoo kale Gabriel Jesus oo aan ognahay qaab ciyaareedka uu muujiyay toddobaadkii la soo dhaafay isagoo keenay 14 dhibcood halkaas markaan wal soo baxno Manchester City waxay la ciyaaraysaa Manchester United iyo Southampton kulanka Manchester United iyo Man City ayaa suurtagal tahay in Manchester City lagu dhago maadaama kooxda Manchester United ay aad mooday kulamadii hadda ugu dambeeyay kulankii ugu dambeeyay xil ciyaareedkan Eber ayaa la galay laakiin kulamadii ka horreeyay waxa awood sareysay oo dhanka guulaha marka la fiiriyo ayadoo Manchester United ay ka taalay haddana Manchester City oo ay xifaaltamaan oo daras yihiin way ka badinaysay marka waxaad moodaa kulan trick u ah oo Manchester City ay aad ugu wanaagsan tahay inuu yahay oo laga yaabo in meeshaas caqabad ay kala kulanto xoogan hadda ay ku socoto sida xawliga ahna in la celiyaa suurtagal laakiin markaan fiirino haddana Manchester City iyo qaab ciyaareedkeeda iyo kalsoonida ka muuqata iyo sida ay horyaalka ay u caddahay haddana Manchester United daafacyada oo kale waxa laga yaabaa in ay la kulmaan weerar zaa'id ah iyo gool badan in laga dhaliyo marka kulankaas waa kulan toddobaadkan aad looga horsugayo maadaama haddana ay labadan koox ay kaalinta labaad ku kala jiraan in uu yahay kulan keeni kara war badan keeni kara markaan fiirino dhinaca dhibcaha oo kale Manchester United waxaan ognahay Bruno Fernandes inuu ka mid yahay dadku ciyaar Bruno Fernandes waxa la sheegay in kooxaha 6 ugu sareysa in uu hal gool oo kale uu ka dhaliyay oo uusan si fiican u ciyaaran kulamada kooxaha waaweyn marka loo dhacayo kale martaas xitaa waa caqabad waxa la isku hayaa in Bruno Fernandes ma la iska gadi karaa ma la sii haysan karaa taasna waxaan ani ahaan Bruno Fernandes la sii haysto oo maadaama kooxda Manchester United uu yahay laf dhabar kulamo badan ay harsan yihiin kulankan kaliya go'aan lagu gaari karin
in la sii haysan karo oo dhibco badanna looga xisaabtami karo kulamada soo socda. weliba kulankan hadda inuu u xanaaqo oo warkaas maadaama uu qofka dhibayo in uu dhibco ka keeno suurtagal. marka kulankan Manchester City la leedahay Manchester United, kulan kalena waxay la leedahay kooxda Southampton oo wajihi doonto. dhanka kale Southampton markaa fiirino, Southampton waa laba ka mid ah labada kooxood ee double game-ga ay ka mid tahay. waxay wajahaysaa Man City, waxay kaloo wajahaysaa kooxda Sheffield United. Southampton markaan fiirino qaab ciyaareedkeedii xil ciyaareedkan bilowgiisa waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan oo wax badan looga tashanayay, ciyaarino badan ay dhibco keenayeen, weliba daafaca markaan fiirino goolahayaha oo kale ilaa weerarka ilaa qad dhexe. marka hadda waxaa haddii aad rajaynayso inaad ciyaartid jibaarka bench boostiga toddobaadka soo socda, waxaad ka dhigan kartaa in benjiyada aad ku xoojisatid ciyaaranada sida Ings oo kale, ciyaaraanka kale ee kabtanka u ah kooxda Southampton Ward-Prowse, iyo ninka kale ee lagu magacaabo Vestergaard oo dhawaan hadda ku soo laabtay daafaca booskiisa ku soo laabtay maadaama uu muddo ka maqnaa, asna dhaawac ku maqnaa, laakiin hadda uu soo laabtay. marka inaas ayaa laga fiirin karaa labada kooxood ee double game-ga leh. markaan fiirino si guud kulamada ee toddobaadkan la ciyaari doono, kooxda Burnley ayaa waxay wajahaysaa kooxda Arsenal, Sheffield United iyo Southampton, Aston Villa iyo Wolves, Brighton iyo Leicester, West Brom iyo Newcastle, Liverpool iyo Fulham, Manchester City iyo Man United, Tottenham iyo Crystal Palace, Chelsea oo wajahaysa Everton, West Ham oo wajahaysa Leeds, Manchester City oo Southampton martigelinaysa kulanka ugu dambeeya ee toddobaadkan 27. markaan fiirino kulamada qaar oo aan isleenahay waxaa laga yaabaa in dhibco ay ka soo xaroodaan. kulanka ugu horeeya ee maalinta Sabtida ah kusoo bilaaban doono waa Burnley iyo Arsenal. Burnley waa dhinaca daafaca markaan fiirino toddobaad ciyaaryahanno waxaa jira aad looga xisaabtamayay oo marka uu goolahayaha ugu horeeyo Nick Pope iyo Ben Mee ilaa Lowton. xagga weerarka Arsenal ayaan isleenahay waxaa laga yaabaa in ay isbedel ka imaado oo halkaasi ay dhibco ka keenaan. waxaan sidoo kale ognahay in macallin Arteta uu bilaabay in ciyaaryahanada uu isku bedelo. waxaa muuqata in shaxda uu isbedel ku sameynayo. waxaa loo aaneynayaa in maadaama horyaalka kooxaha ay la kulmayaan jadwal adag oo ciyaaraha oo iska daba imaanaya, in ay muhiim tahay in koox kasta ay samayso isku bedel oo ciyaaryahanada ay mar walba qaar ay jaanis siiyaan. marka Arteta dadkaas ay ka mid yahay ciyaaryahan Saka oo toddobaadkii la soo dhaafay dhibco badan keenayay, kulankii hadda ugu dambeeyay ee Leicester ay ka badiyeen waxaa la geliyay kaydka. marka Saka oo kale waxaa muuqata in meeshaas dhibco uu ka keeni karo. Lacazette ayaa ka mid ah dadka dhibcaha keeni kara oo haddii lagu bilaabana lagu tashan karo. Aubameyang waxaad moodaa asna in kabtiisii gool dhalinta uu dib u soo helayo, asna waa differential ayuu noqon karaa. haddii aan fiirino kulanka kale ee aan isleenahay waxaa laga yaabaa inay dhibco ka imaadaan oo goolalna la iska dhaliyo, waa kooxda Liverpool iyo Sheffield United. Liverpool iyo nagahada ee Fulham. Liverpool waxaad moodaa in xaalad adag ay ku jirto. waxaa laga badiyay 5 kulan oo xiriir ah gurigeeda markii ugu horeysay inta kooxda Liverpool ay la aasaasay. marka waxaad moodaa waa taariikh aad u xun, laakiin haddana waa kulankan markaan fiirino Fulham ay wajahaysaa. ciyaarahan Mohamed Salah kulankii Chelsea ee la ciyaareen waxaa la bedelay daqiiqadii 62. daqiiqadii 62 markii la bedelay waxaa arkaynay isagoo ka xun in la bedelo. marka waxaa laga yaabaa in meeshaasi fursad uu helo oo asagoo markaa isku dayay inuu macallinka uu dhaho waad ku qaldanid inaad bedesho, inuu goolka keeno meeshaas. maamulayaasha fantasy waxaa leenahay Mohamed Salah haddii aad ku fikirayso inaad gadid, Fulham ayuu la ciyaarayaa oo kooxaha ugu hooseeya ka mid ah. bal waad u kaadin kartaa oo fursad sii mar kale. Mohamed Salah, Sadio Mane iyo weerarka Liverpool dhinaca daafaca markaan fiirino, Fulham ilaa 2-3 kulamada hadda ugu dambeeyay waxay dhaleen oo kaliya 4 gool ay dhaleen. marka daafacyada waa ku tashan kartaa Robertson iyo Alexander-Arnold, labadaas nin waa lagu tashan karaa. dhinaca daafacooda markaa fiirisid kooxda Liverpool daafacooda inta badan dhaawac ay ka maqan yihiin, laakiin labadaas nin ayaa weerar keeni kara oo
dhibcana ka soo xareyn kara inay shabaqooda ilaashadaan. waxaa kaloo toddobaadkan muhiim ah oo dhibco badan laga keeni karaa waa Tottenham iyo Crystal Palace. Tottenham iyo Crystal Palace waa laba koox oo ka wada tirsan London. waxaan ognahay kooxda Tottenham sida ay uga badiyeen kooxda Burnley iyo kulankii kale ku xigay ee Fulham. marka wali waxaan isleeyahay ani ahaan in ciyaaryahanno badan looga xisaabtami karo oo ugu horeeyo Harry Kane oo kabtanka ah iyo Son. dhinaca daafaca markaan fiirino Reguilon oo kooxda daafac uga ciyaara kana mid ah difaacyada weerarka keena waa la nasiyay kulankii hadda ugu dambeeyay. marka asna waxaa laga yaabaa in kulanka lagu soo bilaabo halkaasna uu dhibco ka keeno. kulanka kale ee toddobaadkan asna muhiimka ah dhibcaha inay ka imaanayaan la isku waafaqsan yahay waxaa waaye kulanka West Ham iyo Leeds. West Ham waxaan ognahay in qaab ciyaareedkeedu uu wanaagsan yahay. ciyaaryahannadeeda Antonio ugu horeeyo weerarka ay markan ay suurtagal tahay in weerar celis ay ka imaadaan oo halkaas dhibco laga keeno. sidoo kale Leeds oo aan ognahay weerarkooda iyo sida ay koox kasta ay gool uga dhaliyaan inay ayagana markaas dhibco ka keeni karaan. ciyaaryahanada Bamford oo aan ognahay sida uu xil ciyaareedkan kabtanada FPL-ka uu u caawiyay iyo sidoo kale saaxiibkiisa Rafinha oo toddobaadkii ka horeeyay toddobaadkan ayaga double game ay lahaayeen kamid ahaa ciyaaryahanadii sida fiican u ciyaaray. xitaa waxaa jirta kulan asagoo waxba dhalinin uu ku helay bonus. marka ninkaas oo kale waa laga soo qaadan karaa. sidoo kale West Ham dhankeeda markaan ku laabto ciyaaryahan Cresswell waa ciyaaryahanka marka la daafacada goolasha dhalinayo daafac ugu gool badan waaye 9 gool ayuu dhaliyay. marka waa Cresswell oo kale waa lagu xisaabtay. marka Kofal ayaa kamid ah dadka kale ee daafacyada weerarka keenaya. halkaasi waa koox. markaan ka soo gudbo kulanka Chelsea Everton markii daafac la dhaho labadii usbuuc hadda ugu dambeysay dhibcaha ugu badan ayaa keenay oo Chelsea goolasha laga dhaliyay laba gool oo kale ayaa laga dhaliyay inta hadda Thomas Tuchel uu hayay. marka waxaad moodaa meeshaasna daafacyada looga xisaabtami karo. ciyaaryahan waxaan ognahay inuu dhaawacan yahay Harvey Barnes iyo James Maddison oo toddobaadyadii la soo dhaafay Leicester hogaaminayay oo dhaxda dhibco uga keenay. laakiin maadaama ay dhaawacmeen bedel haddii aad u baahan tahay waxaa ku bedelan kartaa oo Chelsea u ciyaara Mason Mount oo hadda toddobaadkii la soo dhaafay 4 dhibcood keenay. marka halkaasna waa Chelsea Everton markaan fiirino dhibcahaas ayaa ka imaan karo. dhinaca Everton Richarlison iyo Digne labadii qof ee hadda ugu dambeeyay waxaa waaye markii weerarka la dhaho weeraradii ugu badnaa keenay. dhinaca daafacana Holgate iyo Keane ayaa keenay. sidoo kale Sigurdsson ayaa kamid ahaa. halkaas waxaa ka dhaawacan Rodriguez welina bedel haddii aadan sameynin ciyaaryahanno muhiim ah oo ku tashan kartid oo toddobaadkan ciyaari doona jiro oo Rafinha uu kamid yahay. waxaa kaloo kamid ah Mason Mount oo aan kasoo hadlay iyo Gundogan oo asna Manchester City ciyaara. marka ciyaaryahanadaas ayaa ku bedelan kartaa ma haddii aad Rodriguez oo uu soo gaaray dhaawac yar oo laakiin 75% waa uu ciyaari karaa leeyahay laakiin laskuma hubo. marka waxaa mar walba kaaga fiican in aad ciyaaryahan aad isku hubto aad dheelsiiso.